markale kula wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan oo dhageysataan xiliyadan oo kale qodobada barnaamijka gabigiis baynu ku soo qaadan doonaa waxa kamid ah madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa aaminsan in dawladda federaalka Soomaaliya ay uga eexatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ay ka wada yimideen qaybo kamid ah wadamada Carbeed ee siyaasad ahaan isdiidan haddaba sidee baad u aragtaa aaminaada uu madaxweynaha galmudug u aaminsan yahay dawladdu inay ka jeceshahay maamul goboleedyadaasi sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu leeyahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo waliba madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan waxay si xornimo uga soo degteen magaalada Muqdisho halka Xaafna loo diiday garoonka Muqdisho isla markaana oo toos u aaday dhinaca waqooyi Somaliland isla markaana isagoo Somaliland jooga ayaa sidoo kale loo diiday diyaaradii kasoo qaadi lahayd dhinaca Somaliland si ay u keento cadaado arintaasi sidee baad u aragtaa ma aaminsan tahay in dawladda Soomaaliya ay arinka ay ku dhaqaaqday haday ku dhaqaaqdana maxay kaga damacsan tahay maamulka galmudug adoo xusuusan in sidoo kale madaxweynihii ka horeeyay ee dhinaca Hirshabelle sidoo kale daadku uu qaaday kadib markii uu ka hor yimid qaybo ka tirsan siyaasadda dawladda Soomaaliya doodaasi oo xiisa gaar leh saaxiib walba oo ka tirsan barnaamijka subax wanaagsan dhageystayaasha si xornimo ah ayuu dooda uga qayb gali doonaa aragtidiisa si saliima ayuu u dhiiban doonaa ma jirto caburid iyo qof lagu qasbayo fikir gaar ah qof kasta oo kamid ah saaxiibadana waxa la yahay gacmo furan ku soo dhawaada magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan soo walaal magacay halka aad joogtay aragtidaada hadalka Xaaf ka soo yeeray walaalo aniga magacayga waxaa la yiraahdaa horta waan salaamay salaanta 14 boqolka Soomaalida dhan dhageysanaysa iyo adigaba Cabdullaahi waa idin wada salaamay anigoo ah idil Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa maanta caawin anigoo idil Cabdullaahi Farmaajo ikadi wax yar idil Cabdullaahi Farmaajo ma waxa tahay gabadhii la dhalatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee saxda ahayd walaalo gabadhii la dhalatay baan isku aabahay isku hooyaha ahaayeen waa walaalkii wow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gacmo furan baan kugu soo dhaweynayaa waxa tahay qof qaaliya soo dhawow idil Cabdullaahi Farmaajo soo dhawow halo idil hadda si fiican ku maqla soo dhawow soo dhawow waa ku jira وسلامي دوت وعندنا ماتا أنيقو قف مواد سوماليات كان هادلها كان ديدية يا مجا فرماجة ورالكي محمد عبد الله فرماجة وأن آد لوجوها وينا سومالي يورنا أوكعين يريدنا يوكعين شيخ شريف عامنا لو استاجي لوجو الدعية لوجونا وينا ما أنتنا آد بانو حما هاي صار دبعتها سومالي دكتشرتو iyo maalinba maalinta ka dambaysa dhibaatada sii socota inaan ka hadlo ayaan macaawa goostay anoo u hadlahaya Soomaali ahaan oo kamid ahay shacabka Soomaaliyeed wayahay Axmed Ducaale in walaalka oo madaxweyne ka ah Soomaaliya isagoo reer galmudug ah arintan uu ka tawdo iyo waliba su'aashaan raba inaan ku weydiyo halkuu ka baxay walaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la leeyahay muddo 5 isbuuc bal marka ugu horeeyay walaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel igu sheeg walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horta shacabka ma oga meeshuu ku dambeeyo iyo meeshuu hadda lagu laayahay iyo aamusnaantiisa horta walaalkay nin wanaagsan weeye nin qowlkii shalay uu qaaday maxay ahayd wanaagsan dabeecad wanaagsan Soomaali mid isugu tahay laakiin Maxamed Cabdullaahi situation baa haya محمد عبد الله ميل بو كحيران yahay dadkii shacabka iyo dadka iyo baarlamaanka ay doorteen dad buu meel ugu xiran yahay maamulka Soomaaliya dad baa maamusha Maxamedna maamulo dibkaan istaba jooga dad baa wada dadka maamulka haya ayaa wada Maxamed wax uu og yahay male qol baa lagu xirtay qolkaas uu ku jira maamulkana dad baa maamusha
dadkaa maamusha ayaa dhibka soomaalida maalin kastaba dhib iyo fadqalalo iyo dowlad goboleed iyo in nin la dhiibo iyo in dadka la laayo iyo in dhibaato la sameeyo iyo in dad la xabadeeyo iyo in dhibaato maalin kasta lagu soo kordhiyo dad baa maamulkaas ka dambeeya dad baana dowladda maamusha iikaadi waxa tahay gabadha la dhalatay madaxweynaha Soomaaliya Marwo Idil Cabdilaahi Farmaajo Maxamed Cabdilaahi walaashiis baa tahay waxaad tiri madaxweynuhu qolbu ku xiran yahay waa walaalka cid kaaga wanaagsan ama kaaga waroon ma jiro yuu ugu xiran yahay qolka yuu qolku ugu xiran yahay wuxuu ugu xiran yahay ragga aan halkaan magacyadooda ka soo yeerinahayo kow isu walaalo wuxuu ugu xiran yahay ragga la yiraahdo damuumaayo nin la yiraahdo Xuseen iyo Xasan oo walaalo ah oo reer xididkiisa ah kow wuxuu ugu xiran yahay Qanyare labo wuxuu ugu xiran yahay Mustafa Dhuxulow saddex wuxuu ugu xiran yahay Cabdiraxmaan Cayinte ugu xiran yahay reer xididkiisa ugu xiran yahay meesha maamulkana waxaa wata ayaga xafiiska madaxtooyadana ayagaa wata dadkan dhibaatada aan degi la'ahay ee Soomaaliya ka dhex taaganna ayagaa wata maamulkan iyo siyaasadana ayagaa wata Maxamed Cabdulaahi wax uu ka warhayo maanta midna ma jirto waana walaalkay xoogaal baan idinkaga ahay waxaan ka codsanayaa Soomaalida 24 saac Farmaajo waa sida Farmaajo waa magaca aabahay nickname-kiisa weeye aabahay Cabdulaahi ayaa la yiraahdaa Farmaajo asaga waxaa la yiraahdaa Maxamed Bashiir walaalkay nin wanaagsan weeye aniga ahaan oo ina Farmaajo oo walaashiis oo reer Farmaajo maanta meel walaalkay ku jiro kama warheeno qol baa lagu xareystay dadkii waa loo diiday wayahay hal su'aal idil hal su'aal runtii waxaan ahay soo saaraha barnaamijka magacaygu Cabdilaahi Balwaan waxaan barnaamijkan baan jeediyaa adiga dad baa ku dhageysanaya ma ilaah baa kugu og waxa tahay gabadha la dhalatay qof muslima tahay gabadha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inaad tahay ma ilaah baa kugu og ilaahay baa igu og oo wallaahi oo waa igu billaahi oo waa igu tallaahi walaashiis kaliya oo kaligeed gabar u ah baa dhahay oo la dhalateen isku aabiis hooyanahay ma sha Allah waanu qanacnay mar haddaad noo dhaartay way halkaad ka sii wad marka Farmaajo waxaad tiri reerka xididkii ayuu gacanta ugu jiraa wuu aamusan yahay marka ma waxaad ula jeedaa waa la qasbaa miyuu sixran yahay miyuu xanuunsan yahay walaalkay waa sixran yahay walaalkay Maxamed waa sixran yahay Maxamed Cabdulaahi waa sixran yahay waxaana taa daliil u ah kow bariidadii dhacday dadkii la laayay kamuusan hadlin labo ninkii la dhiibay qalbi dhagax muusan soo istaagin masraxa muusan ka hadlin ilaa shacab baa doortay baarlamaanka shacabka madaxiisa ayay ugu doorteen maadaama ay annaga mas'uul laga yihiin baarlamaanka iyo xildhibaanada may garatay labo maxay ahaydeen dagaaladii ayaantii dhowed dhacday saddex maxay ahaydeen arrintan hadda galmudug lagu samaynayo afar kan hadda lagu sameeyay Hirshabelle lagu sameeyay shan Maxamed Cabdulaahi intaa dhibaatada wadanka gaartay ee shacabkuna ka akhbaar sugayaan inuu hadlo maxaa u diiday shalay markuu electionka soo galahayay oo tartanka uu la galahayay Xasan Sheekh waa tuu miidiyaha soo istaagahayay waa tuu wax kasta ka hadlahayay waa tuu shacabka u ballan qaaday inuu cadaalad u noqdo inuu cadawga Itoobiya ka saaro inuu maxay sidii Ilaahay ugu ogyahay uu ku maamulo inuu nabadii soo celiyo waa tuu qudubka gacanta ku saaray maxaa isbedelay gadaal shacabkii shalayto intaas hamiyada u haysay ilaa iyo intaasna maxay u jecleed u ooyeysay Sheekh iyo Shariif iyo Caamo iyo ilmo iyo duq iyo waayeel loo ooyay maxaa kalifay walaalkay inuu aamuso maxaa kalifay dhibaato aan joogto lahayn inay maalin kasta socoto waa su'aal Abdullah idil dad badan baa imika toos barnaamijka u dhageysanaya walow aan nahay dad islaama oo dhageystayaasha u sheegayo war hadda diin islaam haysataan oo aad dad islaam tihiin oo Ilaahay ka baqaysaan qofka markuu dhaarto waa la aaminaa idilay dad badan baa codad kala duwan oo kaaga ayaa warbaahinada qaarkood qayb inkirma ah iyo qayb saxaba laga sii daayay marka dadka aaminaada idil Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka baxda laakiin annagu waxaan nahay dad iimaankoodu dhameystiran yahay
waxaana u sheegaya qofkii dhaarta aamini waayey ilaah baan ku dhaarto qofkaasi qofkii dhaarta aamini waayey isaga ka xun marka fadlan yaan lagu cayaarin diinta islaamka way dhaaratay gabadhu idil cabdilaahi farmaajo waa gabar la dhalatay madaxweynaha dhaarta ayaynu tixgelinaynaa idil ay may ogolaan kartaa barnaamijkaygan subax wanaagsan maalin inaan si gaara kuu siiyo oo aad igaga sheekayso ciladan 5 isbuuc ee maxamed cabdilaahi farmaajo haysata waa kuu siinaya abu anigoo u hadlahaya as-Soomaali ahaan أنا وهذا لهاي الشعب الصومالي أنا وهذا لهاي ودنينمو ما مقليسا أنا وقبيل شقق مليه وما لهم بانو هذا ليا ودنيني ما نو هذا لهاي إلهي وحبوجي هانو هذا لهاي سدو إلهي أنا جا لحد اللي حد يقول لما يستري إلهي خلقي إنه الشيء إلهي يجري أنا هي أدونك إلهي أيارون تكون شيء وأنا كون فصحية ديار بانكو حي ميديا كستنوا كشيء ولكن سومالي يكسبين إنه مدحوينه هاي dad baa meel ku haysta maamulkiisana waa la wataa dadka anagu ma dooranin maxamed baan dooranay maxamedkii la doortay aaway maxamed farmaajo la doortay aaway anagu mursada ma dooran xidid ma dooran mustafa dhuxulo ma dooran khayra ma dooran damuumay ma dooranin cabdiraxmaan caynta ma dooranin mid kale waan ku sheegayaa oo cadeen ku ah wasiirka arrimaha dibadda ee Yuusuf Garaad naagtiisu iyo naagta maxamed waa ilma adeer fiir walaalo wasiirka abniga islaaw hooyadii waa murursade si cali dhigiso taabit hooyadii waa murursade si cali dhigiso wasiirka samplooshi naagta maxamed qaba abtigeedu waa si cali dhigiso maxaa khayr waa seedigi mustafa dhuxulow ninka xafiiska fadhiyo waa damuumay xafiiska asagu fadhiya ninka safiirka Itoobiya loo soo wareejiyay in adeerkeed waa murursade maxaa kalifay dawladii Soomaaliyeed ee loo hanweynaa in murursade kaliya ay maamulaan aw shacabkii Soomaaliyeed aw qabiiladii Soomaaliyeed aw mideyntii Soomaaliyeed idil waxaan ka rabaa adigoo mahadsan idilay waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa dad 100% islaam aad bay ku aamineen waxa tahay gabadhii la dhalatay maxamed cabdilaahi farmaajo waan kaaga macalinayaa inaad barnaamijkan la soo xiriirto waxaan kugu casuumayaa barnaamij adiga ku gaara aad iyo aad ayaan ku salaamayaa waqtiga barnaamijka iga dhacay waan kula soo xiriiri doonaa xor baan u ahay inaan kula soo xiriiro